السلام عليكم غيرت meel walba joogtiin oo mar kale muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta wax walba ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaaryahan Cancelo oo laga xiiseynayo garoonka Camp Nou. Barcelona ayaa lacag gaari 50 milyan ninka ku doonaysa AC Milan oo la wareegtay laacibka Joaquins oo hore ugu ciyaariya Villarreal. Al Nassr oo markaan dalab 32 milyan ka gudbinaysa laacibka Sadio Mane. Mohamed Kudus waxaa ku dagaalamaya Arsenal iyo Chelsea laacibka ka tirsan Ajax. Kylian Mbappe oo iska diiday kooxda kubadda cagta ee Al Hilal iyo lacagaheeda waalida ah xilli Sacuudigana uu aaday Musa Diaby ninka la oranayay xilli kooxaha Paris Saint-Germain iyo Man City ay ku dagaalamayaan laacibka Crystal Palace ciyaara ee Miguel Olaya. haddii aan muuqaalkeena la garay kana subscribe noo saara haddii aanu ku bilowno arrimaha Kylian Mbappe iyo suuqa kala iibsiga. Kylian Mbappe ayaa waxaa maanta dalab waaliya oo 300 milyan ka soo gudbisay kooxda kubadda cagta ee Al Hilal xilli kooxdaasna ay Kylian Mbappe u ballan qaadeen xilli ciyaareedkii inay siinayaan 200 milyan haddii uu ogolaado inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Al Hilal. kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaana ogolaatay dalabkii ka yimid kooxda kubadda cagta ee Al Hilal walow Al Hilal iyo Kylian Mbappe aan wax wada hadal aan u dhaxaynin. marka labada dhinac dalabkii ka yimid Al Hilal Paris way aqbaleen laakiin Kylian Mbappe wax wada hadal lama u safurin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Al Hilal. isagu wuxuu heshiis hoose la galay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid wuxuuna ahaa heshiiska inuu si free ugu biiri doono kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli ciyaareedka 2024. sidaa daraadeed Paris Saint-Germain ayaa waxay ku khasbanaatay ninka Kylian Mbappe inay suuqa dhigaan maadaama haddii ay sii hayaan uu si bilaash ugu biirayo kooxda camaaliqada Spain ee Real Madrid. Kylian Mbappe asigu waxa uu aadista caasimada Spain ee Madrid halka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ee iyaduna u cadahay inay qiimo lacageed oo 160 milyan ku dhow inay ka faa'iidaan laacibka reer Faransa ee Kylian Mbappe halka Sacuudiguna ay rabaan Mbappe inay halka geeyaan oo lacag waaliya siiyaan. wuxuuna noqonayaa haddii uu dalabkan aqbalo ninka kubadda cagta ugu mushaarka badan. Ronaldo ayaa hadda 170 qaata laakiin Kylian ayaa noqonaya ciyaaryahanka ugu horeeya. dhinaca kaleetana kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la wareegtay laacibka lagu magacaabo Joaquins oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Villarreal. laacibkan ayaa u soo dhaqaaqay garoonka San Siro lacag gaaraya 20 milyan iyo 8 milyan oo gadaal looga darayo oo bandhiga ciyaaryahankan lagu qiimeynayo. laacibkan waa laacib garabka ka ciyaara lugta bidixda ku shaqeysta. ninkan waa nin fantastic marka AC Milan garab wax kala ay helayaan labada garbood markan waa shubo midna waa Joaquin midka kaleetana waxaa ciyaaraya laacibka lagu magacaabo Rafaelio. kooxda kubadda cagta ee Manchester City daafaceeda midig ama booska tareega ka ciyaara labada boosba waa ninka ciyaara ee Joao Cancelo ayaa markan waxaa looga gacan haatinayaa garoonka Camp Nou ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Man City ayaana ninkan ku doonaysa 50 milyan lacag gaaraya xilli Barcelona ay ninkan saad u xiiseynayaan. laacibkan ayaa amaah ugu ciyaaray xilli ciyaareedka hore kooxda kubadda cagta ee Munchen xilli ninkan garoonka Etihad Stadium looga diray qaab amaah laakiin dib ayuu haatan ugu soo laabtay wuxuuna rabaa inuu u dagaalamo booskiisa walow kooxda Man City ay rabaan ninkan inay lacag waaliya ka faa'iidaan haddii uu ka dhaqaaqayo garoonkooda. dhinaca kaleetana kooxaha Chelsea iyo Arsenal ayaa markan ku dagaalamaya laacibka lagu magacaabo Mohamed Kudus oo ka tirsan kooxda Ajax ee Eric Device ka ciyaarta. laacibka Mohamed Kudus ayaa bandhig cajiib ka sameeyay horyaalka Eric Device iyo kooxda kubadda cagta ee Ajax tartamada ay ka qayb galayeen wuxuuna soo jiitay kooxaha ugu waaweyn Premier League sida Arsenal iyo Chelsea. Mauricio Pochettino ayaana u arka laacibka mid ku habboon qalcada Stamford Bridge wuxuuna rabaa inuu halka keeno walow macallin Mikel Arteta uu ninkan si saad u daneynayo. labada dhinacba markan waxay rabaan inay ku dagaalamaan laacibka Mohamed Kudus. dhinaca Bayern Munchen laacibka 12 bilood kaliya ku sugnaa gegada Allianz Arena ee lagu magacaabo Sadio Mane
ayaa markaan wuxuu ka dhaqaaqayaa halka wuxuuna ku wajahayaa dhanka iyo Sacuudiga. Kooxda kubadda cagta Al Nassr ayaana dalab rasmi ah markaan ka gudbisay Sadio Mane, dalab gaaraya 32 milyan. Laacibkan ayaa markaan wuxuu rabaa inuu ku biiro kooxda Al Nassr kana garab ciyaaro CR7 iyo xerta kaleeto ee markaan u dhaqaaqaysa Sacuudiga. markaan waxaan eegaynaa dhinaca kaleeto Paris Saint-Germain, Manchester City iyo Chelsea ayaa kulligood waxay isku wada hayaan laacibka Crystal Palace garabka weerarka ugu ciyaara ee Michael Olise. laacibkan ayaa waxaa lagu qiimeeyaa lacag gaaraya 52 milyan. ninkan ayayna rabaan mid walba midda kale inay ku garaacdo. ninkan wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace walow uu rabo inuu meesha ka dhaqaaqo oo meel wanaagsan uu gaaro. kooxahana mid walba waxay rabtaa inay iyadu qaadato dagaalkuna. Palace ayaa faa'iido ugu jiraayo wuxuu u goonayaa lacag waaliya maadaama ninka la isku wada hayo qiimaha lacageed ee lagu doonayay ayaa wuxuu noqonayaa mid sareeya. dhinaca kaleetana Sacuudiga markaana waxaa u dhaqaaqay laacib kaleeto kooxda Al Ittifaqna waxaa ku biiray laacibka Musa Diaby. marka horyaalka Sacuudiga waa loo wada ordayayo halka waa loo wada socdaa. Galatasaray si rasmi ah ayay ugu dhawaaqeen qaadashada laacibka lagu magacaabo Zaha. heshiis ayayna ka saxiixeen si rasmi ah ayayna ugu biiray kooxda Galatasaray. haddii aad muuqaalka heshaan waa la garay kanalka subscribe noo saara. goodbye.